maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago duco qofka hadduu xanuunsan yahay aqristo oo ilaahay qadaro xanuunkaas uu ku dhinto ay naar u dhawaanaynin korkiisana ay dhadhaminaynin haddaba ducadaas maxay tahay xadiidkan waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka wariyay aba saciid aba hurayra radiyallahu anhuma wuxuu yiri qaala rasuulullah rasuulka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii xanuunsado كدبنا يراه لا إله إلا الله والله أكبر إلهي وحو لي صدق أدونك يهرون شيء لا إله إلا أنا إلهي رن مجر إلا أنيقا موياني أنيقا أنا وين كدب أدنا أدونك دو يراه لا إله إلا الله وحده إلهي وحو لي أدونك يهرون شيء الله مجير أو أنيقا عن أهين وأنا كلي كدب هذا دونك دويره لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي وحو ليه دونك يرونو شيء إله مجرؤون أنيق أهين وانا كلي وح شريك أهنه مليه كدب دونك مركو يره لا إله إلا الله له الملك وله الحمد إلهي وحو ليه دونك يرونو شيء إله مجرؤون أنيق أهين boqortooyada aniga iska leh mahadoo dhanne aniga iska leh kadib adoonku wuxuu leeyahay laa ilaaha illa allah walaa hawla walaa quwwata illa billah ilaahi wuxuu leeyahay adoonka runoo sheegay ilaaha aniga leh ahayn ma jiro qof oo xeelad ama awood oo aniga aan siinin yeelanaayane ma jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man qaalaha fi maradihi qofkii yiraahdo markuu xanuunsan thumma maata kadibna dhinto lam tut'imhu naar korkiisa ma dhadhaminayso xadiidkana waxaa soo saaray imaam at-tirmidhi waana saxiix sahih jaamic ku jira saxiix at-tirmidhi sheekh albani saxiix ayuu ka dhigay ducada haddaan ku soo celina kaligeed waxa way laa ilaaha illa allah wallahu akbar laa ilaaha illa allah wahdahu لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مركلا كعلنا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول بينتي ولا ليال قف والبها حفظي دعنا ودعاء وقيمة بدن مركا حنون سنتي هدن أقرصو دتك حنون سنة بر ماشي اللي سوجرو إلها أوك كلنا waxaa ognahay inay dhimasho naga dambayso laakiin qof kasta markuu dhinto wuxuu jecel yahay inuu ilaahay naarta ka badbaadiyo jannadana geliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaya naarta inuu naga badbaadiyo jannadana na geliyo walaalihina kala u sii gudbiya jazakumullahu khair barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله